السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hi everybody. kusoo dhawaada shabakada setgroups.blogspot.com casharaad xiiso badan oo ku saabsanaa sida loo sameeyo website platformkiisu yahay blogger. Hadaba cashirkan maanta waxaan ku qaadan doonaa sida aan website-keena aan u sameyn karnaa ama aan u soo geli karnaa wax loo yaqaan Facebook page-kaada si qofka ku jira website-kaada uu awood hadhow u yeelan karo in uu like dhaho page-ka ku leedahay Facebook. So that waxaad imaanaysaa Google waxaad ku qoraysaa search-ka Facebook page blogging. Guys, sidaas ayaad qoraysaan oo forta ayaa bold ah Facebook page blogging. sida ujeedaan ayaad qoraysaan then search dhaha waxaad ku soo qormi doontaa sida kan waxaad ku dhufanaysaa qaybta ugu horeysa ee Facebook developerska ku dhufo daawadayaal waxaa ku soo bixi doona sida tan macnaha markaad soo dhigayso page-kaada qaab sida tan ayuu markaa website-ka u soo gali doonaa sida ujeedaan Facebook page-kaaga ka muuqda saas camal inuu soo galo. marka hoos ayaad soo dedegaysaa waxaad imaanaysaa meeshan then waxaad sameynaysaa meeshaas ikoonta Facebook URL dhammaan wax ku jira ayaad all in dhahdo aad ka taleedaysaa then waxaad imaanaysaa page-kaada ku leedahay Facebook-ga then URL-ka dhammaan korkiisa ayaad hal mar taabanaysaa wada leedahay left click then copy soo dheh waxaad imaanaysaa meeshii ayaad imaanaysaa page URL-ka meesha u banaan ayaad best ku leedahay. inta kadib waxaad arki doontaa inuu soo gali doono page-ka meeshaas boxkaas inuu soo galo hadoo jaxarto barashada Android-ka inuu soo galo meeshaas oo ah 2541 likes inay leedahay. marka waxaad ku xukumi kartaa halkan adigoo height-ka ka dhigi karo 100 oo kale si uu ku weynaado width-kana ka dhigi karto 350 for example xogaa si uu weynaado then waxaad taabanaysaa get code si aan u helno code ku dhisan HTML. then laba qaybood oo halkan ka kooban daawade qaybta labaad ayaad tagaysaa oo soo copy garaysanaysaa ma doonayna qaybta koobaad then waxay imaanaysaa meesha ka maamulaysa blogger-kaadii waxaad taabanaysaa meesha ku qortaa lawyer then waxaad ku qoraysaa meeshaas added gadget sidebar-kaas meesha ku qortaa added gadget aad ku dhufanaysaa then waxaad soo dooraysaa HTML and JavaScript plus adigu taabanaysa meesha plus-ka then sida tan ayaa ku soo bixi doona waxa halkaas ku qoraysaa oo kale like dheh wax walba ayaa ku qoran kartaa halkaas waa title-ki like dheh adigu Ingiriisi daad u qoro like dheh Facebook inta Ingiriisi qor laay aniga waxa ka jeclaa inaan Soomaali qorto like dheh Facebook page keena okay then code-kii halka inoo qornaa ayaan soo baxsanaynaa then meeshaas ayaan ku qori doonaa daawade control v ku dheh and paste then save dheh okay save arrangement halkaas ka dheh then view blog dheh bloggeena hadda si oo noqday ayaan fiirinaynaa daawade oo abidayr title-ka ah halkan maxaa ku soo qormay like dheh Facebook page-keena halkan waxa ka artaa inuu page-keena soo galay qofkii doonaya inuu page-keena like dhaho wuxuu taaban karaa halkaas like aniga waa la gareey like ayuu leeyahay marka adiga like ayuu ku leeyahay dooti like ayaa leedahay share page-ka taa share dhiratid share halkaas ayaa ka oranaysaa marka aad ayuu xiiso badan cashirkaani waxaad ku baratay sida loo soo geliyo Facebook page-kaada blogger-ka aad ku leedahay Google. hadaba cashirka aad u xiiso badan daawado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. subscribe on my channel.